السلام عليكم جايز كسر دوادا عشرين أقول هذلينه سيدي كدوران كرتا تخصص مستقبلك أو باهنتاي وحن قاصدا ديرت صارينا تخصص كسابسن ميديكال لابراتوري تكنولوجي أما هذا درت إن دورتين قيبت عافماتك أي شيء باركا وحوك الدوية هاي وحياواها كلا لبرنيزد إيو محا لدها عافماتك شيء باركا مركو waa maxay sheebaar sheebaar waa waxa kaliya oo qofka bini aadanka alla markii lagu dhagan yahay oo jirkiisa oo habeenka hurday ama asoo jidka maray la qabtay lagu dhagay oo attentionkiisa iyo unconscious noqday oo meer daboolmay ama maskaxdiisa ogeyn waxa haayo oo jirkiisa bodygiisa lagu dhagan yahay aanan dareensanayn wuxuu asiga problem qabo qofka identify gareenaya ama solution u helaya jirkaas xanuunsan oo soo saaraya xal u raadinaya dhahayo cudur hebel qabtaa ama meel hebel waxaas kaaga jiraan qofkaas waxa loo yaqaan sheebaarka inaad baratid maxaa kugu kalifayo dadka adduunyada jooga waxa ku kalifay ama research waxa ku kalifay inay sameeyaan asal ahaan wuxuu ka yimid dadka alifay waalidiintooda ama familiyadooda eheladooda waxa ku dhacay cudurro markaas jireen sida cudurkan daacuunka kale cudurka daacuunka marka ku dhacay qofku waxa la arkaa soo shubmaayo oo wax loo qaban karin niman soo iqtiraacay wuxuu sameeyay inuu soo qaado oo ku fiiriyo microscope markuu ku fiiriyo wuxuu arkay in waxyaabo oo dhaqdhaqaaq ay movement sameeyay kadib wuxuu yiri eheladeena waxay noogu baahan yihiin inaan badbaadino eheladeena si ku badbaadin karnaa waxa ku badbaadin karnaa inaan barano waxa iyaga jirkooda ku jiro oo iyaga wareerinay haayo markaad sheebaarka baratid aad waxa ogaan kartaa ehelkaaga qofka wuxuu u jiran yahay ama problemka haysto haddaan sheebaarka barto takhasusad nooceen baran karaa takhasusadka sheebaarka aad bari kartay world wide way iyo job opportunity oo isku xiran yihiin takhasusadka sheebaarka aad bari kartid maxaa kamid ah number 1 takhasus ugu horeeya oo sheebaarka la bari karo waxaa kamid ah medical microbiology ugu fiican medical microbiology waxyaabaha la baarayo maxay tahay waxyaabaha la baarayo waxay tahay waxyaabaha la abuurayo kala culture qafa maar loo waayay guriga jooga isbitaal oo tagay infection oo qaba ama wound infection oo qaba nabara jirkiisa ka soo baxay waxa loo waayay maara loo waayay qofkan meel walba la geeyay isbitaal walba la geeyay dhakhtar walba uu fiirina wuxuu leeyahay qofkan aniga wixii hay ma naqaano sheebaarka loo diro mar alla markii sheebaarka loo baahdo waxa la sameeynaa wound culture la sameeynaa ama waxa la sameeynaa UTI culture la sameeynaa dhiicana laga soo qaadaa qofkaas ama dhiiga laga soo qaadaa dhiiga waxa loo transfer gareena in sheebaarka lagu abuurayo la baarayo waana takhasuska ugu fiican ee magaalada Muqdisho naadirka ah takhasusad kale ee sheebaarka la barto number 2 waxa kamid ah inuu qofkan ku takhasus karo waxyaabaha loo yaqaano manual research oo kale waxyaabaha u baahan manual example waxaan ku fikiro inaan aniga meel furto clinical small clinical la furtaa raba ama farmashi iyo qaas raba inaan furto haddii raba aniga small clinical da u baahanahay waxyaabaha waaweyn mashiinada tirada badan ma u baahni waxa u baahanahay inaan sheebaarka aan u ka saayo qaab manual ah dhiiga la yiri malaria ka baar malaria dad ka baarisid baalki yaro microscope bas u baahan tahay waxa sameeynay manual ahaan u baaray wax walba la baarayo manually waa wax ugu fudud ee waxyaabaha lagu baaro manualiga machine ma aha automatic wax kugu shaqeynaa ma jiro xirfadda qofka uu leeyahay iyo inta sano uu ku dhex shaqeeyay sheebaarka iyo ku xiran tahay filli walbana manualka way galee haddaad baratid histopathology manualka way galee haddaad baratid hematology manualka way galee haddaad baratid biochemistry manualka way galee haddaad baratid parasitology manualka way galee parasitology 100% manual way marka manualigaas wuxuu ka anfacaa intaas hadda takhasus ka shaqeeyay inuu ka caawiyo oo aad si sahlan aad u baari kartid waxa u baahan tahay bas slide yar iyo waxa u baahan tahay waxyaabihii oo loogu talagalay lagu dhibcinay chemical yaryar si aad ugu fiirisid indhahaaga dan khibradaada kaashanay resultiga soo saaray badan aniga waxa ka dhimanay dalkeena ahaan qaasatan dadka Soomaalida waxay ka dhinteen qaabkaas manual wax loo daraaseenay qofkan sheebaarist waayahay uu barta inta sano barta waxay aad u jecel yihiin in takhasus kale noo soo socdaan ee diirada saaran waxyaabaha machine in diirada saaran marka manualka wuxuu ka muhiimsan yahay wax walba oo aniga aan soo sheegnay oo takhasusadka ah ama aan sheegi rabno waxa ka muhiimsan manualka ka muhiimsan takhasuska saddexaad automatically waxyaabaha mashiinada way waxa sameeynay machine sida CBC ama hematology baaraysa machine soo qaadanay dhiiga u diray waa iska baxay magaca le qofka ku saf gareynay sida magaca loo geliyo waa taqaan input iyo output le way waxa ka tagay shaqadu qabanay moogid errors ka xataa madarasi kartid waxa ku soo baxay warqadii waxa u gudbinay magaciisa dhakhtarka referencega qaabka wax loo rabo wax dhan oo lagu save gareeyay hada shaqo ku maleeyay niman waxa imaanayo takhasus kale oo biomedical technology bartaana imaanayo kuwaas waxay ka shaqeeyaan in mashiinadaas habayaan marka machines kaas barnay ama biochemistry machine ku takhasustay ama ELISA machine
kuwaasa waxaa ka dhex shaqeynaya marka inaad habeen kartid sida mashiinadaas oo loo isticmaalo ama loogu shaqeeyo. Takhasuska shanaad biomedical technology ama biomedical engineering. Biomedical engineering ilaa ay hadda takhasuskaas dad bartay magaalada uu ku yar yahay. Dad waxaa jiraan xirfadda ku dhex bartay during work intay shaqeynayeen ku dhex barteen. Intay shaqeynayeen shaqada ay sameynayeen waxay barteen inay waxaan loo baahan yahay wadanka baahi ay ka jirta ay tahay, laakiin ma jiro hal ama laba qafood oo official u cad oo biomedical engineering oo certificate madax banaan u wato. cilmigaas waa cilmi loo baahan yahay. mashiinadan oo kale hadda autoclave oo kale oo ka cilada oo qofku sameynaya malaha, hadduu CBC ka cilado cid sameyn karta male. qaar waa la tuuraa. dad waxaa jira magaalada joogo technician oo ku bartay intay ku dhex jireen shaqada during work ku dhex barteen, laakiin waxyaabo kasii badanaa jiro oo u baahan qofka biomedical engineer inuu barto, sida CB waxaa lagu keenaa CT scan lagu keenaa. CT scan xamar iyo ladoo halaabo ka kac waa Nairobi loo qaadaa, ama machine ultrasound hadduu ka halaabo waa adag tahay in la sameeyo. marka takhasuskan oo biomedical technology aad loogu baahan yahay. takhasuska lixaad waxaa ugu muhiimsan waxaa loo yaqaana forensic medicine. forensic science waa loo yaqaanaa. forensic maxaa naga anfaca? forensic waxaa loo yaqaanaa saddex magac loo yaqaanaa: forensic science, forensic medicine iyo forensic pathology. saddexdaas magac loo yaqaanaa. marka saddexdaas forensic maxaa naga anfaca? forensic waxaa loo isticmaalaa civil and criminal investigation loo isticmaalaa. wiila gabar kufsaday sida ka dhacday magaalooyinka qaar kamid ah Soomaaliya, aynada meel lagu baaraa la waayo in qofkaas oo la dhaho nin hebel ah gabadhan jirkeeda isticmaalay. waxaa lagu ogaan karaa coordinateska oo ninka ugu tagay gabadha spermis wax ka imaadaya jirka ugu tagay in sample laga soo qaado oo asiga kiisa lagu confirm gareeyo oo la ogaado la dhaho qofkaas barnaamijka dambeeyay. ma jiro takhasuskaas ilaa iyo hadda dad si gaar u soo bartay oo ku takhasusay oo cilmi u leh ma jiro. waxyaabaha crime science oo kale, meelaha accident ka dhaco kale ama shilalka ka dhaco kale ama cases ka dhaco kale, dhammaan waxaa u baaraysaa si oo qoto dheer. ilaa hadda baahidaas wax naga qabtiraya ma laha. officialina wadanka ma laha wax loo yaqaano forensic laboratory department ma laha. haddii forensic laboratory department lahaa lahay job opportunity ama dadku waxay ku fikri lahayn inay bartaan ku fikri lahayn. takhasuska toddobaad water and food microbiology ama water and food microbiology. barashada baarista raashinka iyo biyaha. beeraleydeen waa taqaanaa waxay noo soo dhoofiyaan maalin walba cambo raashin fara badan noo keenaan. ilaa ay hadda ma jiro qof oo microbiologist u istaagay ama takhasus gooni u soo bartay. dad way jiri karaan oo takhasusaatka aan sheegna soo bartay, laakiin dad shaacsan oo takhasusaatka soo bartay oo ku shaqeeya magaalada ma jiro. food iyo waterka wuxuu u baahan yahay in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo. biyahan tubada waa iska cabnaa, waxay yihiin ma naqaano. xilliga qaboobaha haddii la gaaro cudurro fara badan ugu dhaco. ilmaha qaar shuban ku soo boodaayo, dadka waaweyn tiifo hay la leeyahay, problema badan ahay. problemka ilaa hadda wax daraasiinaya malaha. beeraleydeen oo kale raashinka inuu soo dhiibaan waa iska cunnaa. problemka uu qabo raashinkaas ma naqaano. daraasaad la raba in lagu sameeyo. biyaha raashinkan lagu abuuraayo aa la rabaa naftirkiisa in la baaro. dhooweeda waxaa la rabaa in la baaro intaan la iska cultivation garayna. anaga waa qabanaa, beer iska kortageena, biyo isaga fureena, wixii abuurka ku shubeena, ilaaha noo soo saarayo. laakiin ma ogin waxaas noo soo baxay salaaxiyadooda imisay yeeli karaan. wixii haddii oo asal ahaan bacteria ku dhex jiray muddo badan long period meel ma yeelayaan. waxaa laga yaabaa markii aad maalmo meel dhigtid kadib inuu isbedelo oo qarmo noqdo germs ka dhex dhasho. waxaa kaloo takhasusaad ka mid ah number 7 isla raashinkaana ku jirnaa food quality ama water quality control. centralka dekadu kale waxaa kasoo degto raashin kasoo degto. ilaa hadda ma jiro takhasus naadir ah ama qof si gooni u bartay oo dhihi kara anaa aan aqaano sida raashinkan dekada kasoo deganayo aan baari karaa. waxaan sameyn karaa raashinkan dhacay ama daawooyinkan dhaca la keenayo oo magaalada aan dhahan waxaan way dhaceen qof confirm garee karo lagu kalsoon yahay cilmigan barta ma laha. haddoo jirana ma shacsano. marka waxaa la rabaa inaan aniga xooga saarno inaan barno food microbial quality control inaan barno si raashinka loo controla. raashinka aan ka hadlayno waa dhowr nooc waay. raashin oo juwaan lagu soo shubay iyo kuwa gasacaysan oo ready made ah. waxaa loo yaqaana ready made food. waa fure gasac waa cune. raashinkaas sida ready made foodka ah salaaxiyadooda yaa baaray. raashinkan loorarka ku jiro oo sida sokorta bariiska salaaxiyadiisa yaa baaray. waxaa laga yaabaa sokortoo kale inuu ku dhex jiro maado stress la dhahayo. waxaa laga yaabaa inuu sokor dabiici aysan ahayn. qofa la rabaa inuu confirm gareeyo oo sokortaasi sample ka qaado oo kiimi ku daro oo fiiriyo oo dhaho quantity-ga sokor ee tahay, yacni sokorta dabiiciga imise tahay boqolkiiba percentage. haddii ay tahay sokor natural aanan ahayn oo stress maado la soo dhex daro oo midabka macaan wax maceeyo, wax markaa dhadhamiisa oo maceeyo maado lahaa jirto oo waxa kuu maceynayo, maadadaasay kusoo dhex dari karaan. maadadaas dib u soo dhex daray boqolkiiba maadadaas 90 ee tahay keliyaheena iyo beerkeena iyo jirkeena dhan khataraa ku jirnaa.
toban sano ka hor waa ogeed cuduradan sokorta dhiig karka waxaa ma qabi jirin maxaa noo keenay waxaan la soo gelinaya dal uncontrolled waay yaa controlaya shaybaarista controlaya iyo shaybaarista waxaa kaloo ka shaqeynaa inoo barto takhasusaad kale oo rarely naadir ah sida takhasuska sideedaad medical virology ma jiro qof oo basically medical virology takhasus gooni ahaan u haysto medical virology wuxuu naga saacidaa mar alla markii la dhaho hadda corona adduunka dilaacay rag oo faydoorka bartay iyo rag oo yani general iyo communicable diseases barta u istaagay laga yaabo waxyaabaha reportka ee WHO soo saartay bas le inay raaceen laakiin aniga dalkeena baaritaan aniga khaas ahaan genetically ahaan baaritaan kuma sameynin cudurka intuu nagu dhex jiri karo imisoon saameyn ugu yeelan karaa dadka maxaa la gudboon ma jiro qof bartay oo medical virology markii la helo wuxuu istaagaya qofkaas inuu wacyigelin bixiyo ama talooyin oo wasaaradda caafimaadka ku qatanta siiyo marka opportunitygaas waa banaan yahay medical virology waa banaan yahay xataa waxaa kaloo ka shaqeyn karnaa medical virology inaan abuurno kale example magaalada waxaa la sheegaa dadka qaar oo meelaha qaar booshishinada qaar lama tagi karo cudurada HIV oo kale laga baqaa HIV oo kale inuu cudurkaas meesha jayaalo ama dadka inuu qabo si loo ogaana dhiig tastiyan qaadna waa baarnaa cudurka si daran oo waxaa jira dadka dhiigooda jirkooda ku jiro anaga dadka markay dhintaan ma baarno intay nool yihiin badanaa markuu xanuunsada lee baarnaa marka dhinta qofka waxaa lagu baaraa department life forensic department oo soo sheegayna meedka meesha la geenaa waa la baaraa dhiiga laga qaadaa reasonka oo qofkaas u dhintaa la ogaanaa haddii oo forensic department jira marka cuduradan aan sheegayno xalaa loo heli lahay laakiin ma jiro forensic department qofka dhinta waa la qabanaa gudaha la gelinaa qofkaas wuxuu u dhinta lama ogo waxaa maqlay hal ehel isbuuc gudahooda 2 qofood oo hal ehel asal dhimatay wixii u dhintay lama ogo waxaa laga yaabaa inay raashi isla cuneen ama safar isla galeen haddii laakiin qofka koowaad markoo dhinta la confirm gareen lahay la dhihi lahay qofkan waxaas uu dhintay eelka intiisa kale la soo qabta hala baaro waxaa laga yaabaa eelka qof kale lamid wuxuu cunay laga helo oo la daaweeyo laakiin aniga waxaas ma sameyno waxaan sameynaa waxaa aragno aa iska cunnaa waa iska noolnahay waxaan nahan dad oo ilaahay tawakul ilaahay wuxuu yidhi waxaa barnay calama alinsaana maa lam yaclam bini aadanka waxaan baray waxaysan aqoonin wixii oo ilaahay bini aadanka baray aniga waa ka khadsannahay waxaan ku mashquulsannaha waxyaabo aanan loo joogin badankeena waxaan ku mashquulsannaha waxyaabo oo unknowledgeable ah waxaan u baahannaha inaan diirad saarno waxyaabaha takhasusaadkan aan baran karno marka shaybaarka opportunity shaqooyinka u banaan waa soo tataabtay sida organisation u shaqeyn kartaa haddaad shaybaarka baratid meelaha xarumo clinical caafimaad u shaqeyn kartaa wasaaradda caafimaadka u shaqeyn kartaa filiyo badan ay leedahay oo caafimaad oo shaybaar ku takhasusay fili central oo malaria leedahay control malaria fili quality control leedahay fili oo medical laboratory technology leedahay filiyo badan ay leedahay waxaa kaloo u shaqeyn kartaa personally work sida clinical private inaad furatid iyo inaad pharmacy aad tagtid aad tiraahdo qofka oo kula shaqeysana maadaama aad basically aad tahay qof hadda barashada growing ku jiro marka cilmigan faa'iido fara badan uu leeyahay wadankan aad ugu baahan yahay dhibaatooyinkan hadda wadanka jiro dhan wuu xalinaa waxaa kaloo jiro takhasus ka tirsan takhasusaadka aan soo sheegnay takhasus 9aad toxicology waxa la dhahaa jiro toxicology-ga waxaa lagu dhex bartaa forensic science-ka lagu dhex bartaa and crime investigation-ka wuxuu faa'iido u leeyahay toxicology-ga qof baadi wax qaniina lagu taag soo bararaysa magaalada lagu keenaa ma ogid waxa ku dhaca qofkan xawayaan waxaa jira sida kibiliga waxaa jira sida dibqolooc kale dibqolooc hadduu qofkan qaniino sun ugu tagaa haddii qofkaas yad sunta ugu taga dibqolooc la dabageli waayo oo dhiig laga qaadi waayo la baari waayo qofkaas wuxuu dhimanaa because of toxicology problem uu dhimanaa qof oo 6 laxam taam ahay oo waxaa arkay nafta ka baxday oo dhintay because reasonka oo dhintay lama ogo wadanka wuxuu aad ugu baahan yahay 100% forensic department laboratory in la helo cashirkeena intaas kusoo gabagabeynayna wixii talo iyo tusaale u baahan tahay noogu soo qor waxaana kula dardaarmaa inaad takhasuskan medical laboratory technology aad baratid haddaad ka wareersan tahay waana mahadsantihi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.